الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. أردنا طلح أي ويديني سانين وحوي طلح أتمرك ورسالات بان نوع حماي ضدك دبعتوني اللي قد لي ضدك قحيبات بان نوع حماي ونصيب در إنه ما أنت تي الصومالية أو ليه لا تنسى الدجاج السعودي سومالنا اللي لا تنسى النبض هذا ما أنت دول كينا كمده أو ما أنت لا برك عيو آد بان وفور حماي وحنا كهر عم بارين يا magaalada nimanka siyaasiyiinta ah ee deegaanka u dhashay social conference ee ka dhigtay magaalada saay siyaasad inay kuraas ku doontaan dhiig dadkooda oo ogeydeen khaatumo markii lagu dhawaaqay taleex laga dhawaaqay ragii ka dhawaaqay dagaalkii boohooda ka dhacay ayaa uu sababaha oo kuwii marka xamar tagay ee kuraasida baarlamaanka xamar ka qayb galay haddana waxaan leeyahay qoladan siyaasiyiinta ka socota magaalada saddex goboleedka garowe inay magaalada saay ay u socoto ay doonayaan inay dawladda halka dowlad goboleedkaas deersada doorashooyinka inay ka qayb galaan bay doonayaan marka waxay doortay inay dhiig ku falaxashaan markay doonayaan kuraasiba wax laga yaqaasooda weeye waxa kale oo aan jeclahay marka in xagga Soomaaliland sheegana waxa ah nasiib darro in Soomaaliland maanta dhulkeeda lagu dagaalamayo oo xoogag kala sheeganaya ay ku dagaalamayaan ayaguna ka aamusto waxa malaha qorxmaada tilo oran lahaa Soomaaliland waxa isku haysata iyo dowlad goboleedka magaalada saay garowe laakiin laba xoogo midna aan Soomaaliland ba ku dagaalamaya taas waxa ku tusaa in dalkeedu uu ku soo ururay dalkeena aad moodeen ku soo ururay magaalada saay sanaagta magaalada saay galbeed social waqooyi iyo togdheer ilaa salad ay ku soorteen taasna waxay ku tusaysaa cabanida iyo magaala taagdarada dawladeena iyo inaan u jeedinba shacbiga halka lagu dilayana waa shacbi aan leenahay weeye in dawladeena maanta aan u jeedin in dadkeeda daafacdo inaan u jeedin inay 3 sano jirto inay maamulka gaarsiiso Soomaaliland dhulkeedu dhan moogtay tiyo magaalada saay sanaagta barina waxa ka taagan ogtiin aan gacanteena ku jirin marka waxa weeye dawladdu waxay ku mashquulsan tahay sidii ay macaaradku ay uga daba shaqeyn lahayd inta kharash ku bixisay magaalada saay macaaradka sidii loo baabin lahaa si loo dacaydin lahaa si dadka loo kala furfur lahaa si qabaayil loo kala bixi lahaa bay ka shaqeynaysaa furfurkii Soomaaliland bay ku jirtaa magaalada saay dawladda siyaarada ka madaxdeeyahay waxa iyadana aad u mudan sheegaya hubaal iyo media dhibaato lagu hayo waxa weeye horta baalka qaranka nashar TV wuxuu isku rogay meel dadka laga caayo anaga la naga caayo mid qaran maaha cid la garan mayno media gacan xun baa lagu hayaa oo tamaantan la soo daayay ninkii hubaal loo hayay dambigeedii taas waxa weeye isdila haddii dawladdu ay sharciga qaban weydo oo ay qofkii dambi loo haysta ay gacanta ku dhigi weydo maxkamad keena weydo waxay imanaysaa dadku kala aarsado oo qabaal uu kala aarsado marka foolxumada maanta dhacday waa wixii isa soo taraya foolxumooyinka dhacay marka maantana arrinta waxaan leenahay dawladdu waa inay dambiilaha ninka dambiga lagu hayo lagu tuunsan yahay waa xabsi lagu soo celiyaa oo la mariyaa halkii sharcigu mariyay haddii waxa weeye qofku gacanta ku qaadanaya xilkii sharci ku qaadanaya marka waxaan ku soo gaboobay hadalkaygii dawladda waxaan leenahay waa inay ka hadashaa taleex waa inay tusaan dhulkeedna nahay haddii kale waxa weeye qodobka u weynaa ee marka doonaysan inay dhisid ummad state hoodka qarannimada waxa ka mid ugu muhiimsan waxa weeye inuu dalku uu leeyahay dal iyo dal la isla yaqaano xuduud uu leeyahay dadna uu leeyahay marka haddii ay ka maqan tahay 125 dalkii ka maqan yahay qaran matid waana si cad baan u sii daayay dawladani inaanay dalka aanay maamulkiisa gaarsiinin اعتراف قوال أركتو مقدي بوقالي وهذه أركية مانتا ما اعتراف أو لو هذا هي أمشرو يقرش الله هي مركات ضدك كنت انت ما حليها هاي إلى أن نحن ساسيو كوا كلية كفوا الحين وحلينا هاي ودلت كنا كداية الدرجة كل دون إنسان دلت الدرجة لو ما دون ليك دلت كنا طلعنا هاي سكود لينا ودل سويمانات كترسم وأدون كنا حدود بولي لا اعتراف سي هاي ودول سويمانات جمهورية سويمانات كترسم إن شاء الله ما كبدنا ولا جالسين دونا ما قلنا صايم عمرك